haweeneyda inay been sheegayso calaamadaha lagu ogaado waa maxay gabadha kale ku sheekeynaysa inay been ku sheegayso arrinka ay kaaga waramaysa ay been kaaga sheegayso nin iyo gabadhan ku sheekeynaysa ama xaaskaada haata mid kale haatay arrinka ay ku waramaysa inay been kaaga sheegaysa calaamadahan ku garo dhowr calaamad ba soo qaadaya way badan yihiin laakiin muhiimadda ka soo qaadanaya awal gabadhu markay been sheegayso waxa lagu gartaa calaamadaheeda inay jirkeeda taabato gaar ahaan dhagaha iyo afka xaajiyo walaalo bibi jacaylkaygiyo been bay ku sheegay marka inay afka taabato ama dhagaha qocoqocayso mesas way waa calaamadka lagu garto inay been ku sheegayso waa calaamad lagu garto jirkeeda inay ku mashquulsho maanta waa garan kartaan taas arrintan waa cilmi baaris ingiriiska lagu qaaday wax bilaadan qaaday laakiin waxay leeyihiin khubaradii qaaday dumarkii lagu sameeyay baaristaankaas 80% sidaas weey dumarka 100% yani sida wax khilaaf soo jiri karaan laakiin inta badan aqalka saasay ku tilmaameen waxay leeyihiin haweeneyda inay been sheegayso waxa lagu gartaa markay beenta sheegayso waxa laga dareemaa khajiraad iyo xishood ila qofku shay isku hubo kama khajiro markuu caad u sheega laakiin khajiraad markay ay timaado hawlaha jira ugu waxa lagu qarinayaa waxa kale ay tilmaameen inay haweeneyda markay beenta sheegayso cod la maqlayo laakiin aan la fahmin inay ku hadasho igu soo celi kadawna kari weeyo inay arrinta siday ahayd kugu soo celiso waa shay been laga sheegayo waa shay saxan ma aha hadaad aragtay haweeneyda oo bushumaheeda ilkaha ku dhajinayso allah been sheegaysa hadal arrin ayna ku sheegay yani rag inta qaar way la wadaagaan laakiin dumarka qaar yani hadal ku ay gool u leeyeen way luqad waxa leedahay jirkaada luqad buu bixinaya sankaan waxa uu turjumayaa afka waxa uu turjumayaa gacanta waxa ay turjumaysaa cilmi nafsiga xasuudan lagu bartaa hawlo badan baa jiray ogaada marka haweeneyda markay bushumaheeda iyo ilkaha isku dhajiso arrinta ay ku sheegayso been bay ka sheegaysaa la soco waxa tiraahdaa waxa calaamad ama qada xaaskaada tahay deeqaale waxa calaamadihii beenta ka mooyay naga dahaadan ugu cabin oo ugu fahmay bal dhinac kale lagu rogdhay laakiin dhinaca beenalayar bata hore ka geenaa ku qarxin ha ku fashilin aadi u shirkada yara dabacsan u shirkad insha Allah hadaa aragtay haweeneyda oo garbaheeda iyo suxuladeeda yani suxulada halkaas la yiraahdaa suxulada iyo garbaha iyada isku dhajinaysa ay leedahay ama si kale ay leedahay يعني سيدا isku dhajinayso ogow arrinka ay ku sheegayso markaas sida haday sameynayso been bay ka sheegaysaa la soo haweeneydu beenta markay ku sheegayso ma awoodo inay indhahaada si toos u fiiriso oo sida si toos ku soo fiiriso ka qajiraysa hoos bay fiirinaysaa waxa kale oo hadii alla kuuran yahay lagu gartaa inay badiso xaqa tufsiga ama caliyo yani waxa noocaas inay isticmaasho waa been bay ka sheegayso waxba la isku mashquulin waxba la isku dhaafinayay adduunyadu waxay la badan ba ka taagan la socdo inay xaqaysiga ama caliyatufka ama xeeda badiso tanaxnu waxa loo yaqaan oo markaan ay arrin ay weydiiso kaaga waramayso arrinka been bay ka sheegaysaa aqalka xataa dumar rag wala wadaagan arrinta la socdo haday labada camad isku geyso saa isku dhajiso arrinka ay ku sheegaysaa been bay ka sheegaysaa haday xaaladeeda bedesho marka ay ku waramayso arrinka been bay ka sheegaysaa su'aalo kale markay ku waramayso way fadhiday haday istaagto ama way jiifto haday soo fariisato xaaladday marka kaaga warramay haday iska bedesho arrinta been bay kaaga sheegaysaa xaaladda ku sugnayd haday bedesho waxyaalaha kale lagu garto waxa kamid ah in ay yarayso hadalka ay soo gagaabiso hadalka soo gagaaminayso waxyaalaha lagu oo haddana hore uga baran dad waxa jira Ilaahay waa abuuray in hadalka soo gagaabiyo laakiin caada arrintan ma lahayn macna yani sidii aan ogeyd si aan hayb hadalka soo gagaabinaysaa taasi been bay sheegaysaa waxa kale oo dareemay inay been sheegayso hadal aad iska fahamtayba oo fasir baa u baahan inay ku sii farsiisto ku soo kala dhigto maanta yani hadal aan fasir baa u baahnayn oo aad caadi u fahantay inay ku asay ku sharacdo hadba dhinaca uga imaato arrinkaasna been bay ka sheegaysaa ay ku sheegayso markaa weyneed inahaasi waa intay tilmaantay cilmi baarista ingiriiska lagu qaaday 80% lagu tilmaamay haweenku noocaas yihiin خلد وانا وكرا صحنا وانا وكرا إن بدن وكميدنا ده ومعقول وبلاد كل بقى وذاكر مركا بنتن دمانتن بنتن إنه كفجانو وحسد المرس كان كفجانو خيانة إنه كفجانو وحقرس كان إنه كفجانو خدع جاي حاسدني بدأ إنه كفجانو قلب يعني نظيف كنا نلا شاطرنا هاتو نلا عبد أو مجد كتيرين نلا هدي اللي كل شلية شلأ كوكبس كوكدي ميسي أنا هين هاتو نلا شيء